Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa laga yaabaa inaad yaabtay markaad maqashay laba ilmo mataanaha haddana leh aabbo kala duwan, balse waa suurtagal oo way yeelan karaan. Mataano waxaa lagu qeexaa laba ilmo oo isku mar dhashay oo hal hooyo dhashay. Xusuusno qeexitaanka keliya waxaa loola jeedaa hooyada ka waran aabbayaasha. Mataanayaasha ma yeelan karaan aabbayaal kala duwan. Maadaama teknoolojiyadda maanta ay horumartay ayna wanaajisay saxaanta iyo marin helista baaritaanka hiddo-wadaha ee loo yaqaano genetic test, waxayna noqotay mid caddaynaysa in mataanaha ay yeelan karaan aabbayaal kala duwan. Xaaladaha keliya ayaa khusaysa. Haweeneyda ayaa laga yaabaa inay mar hore yeelatay ukun la bacrimiyey ama uurjiifka ku jirtay ilmo-galeenka, markaas si kedis ah ukun mar labaad u yeelato. Haddii ay galmo la sameyso nin kale oo ahayn kii bacrimiyey ukuntii hore, uuna bacrimiyo ukunta labaad, waxaa dhici kara ifafaal loo yaqaano superfetation. Mataanaha ka dhashan waxay noqon karaan kuwo hal aabbo leh ama kuwo leh laba aabbo kala duwan. Tusaale ahaan, kiis ka dhacay dalka Shiinaha, haweeney u dhalatay dalka China ayaa umushay laba mataano ah, laakiin markii ay dhashay carruurteeda mataanaha ah, haweeneydii wuxuu ogaaday in labada cunug ay muuqdeen kuwo aad u kala duwan oo mid kaliya ayaa isaga u ekaa. Kadib baaritaanka DNA, lamaanaha waxay ogaadeen in dhallaanka dhab ahaantii ay ka yimaadeen laba aabbo kala duwan. Hooyaduna waxay shaaca ka qaaday inay lahayd hal habeen hore. Inkastoo kiisaska sidan oo kale naadir yihiin, haddana way dhacaan. Badanaa kiisaska waxaa lagu ogaadaa sababo sharciyeed, sida ninka inuu ka keeno su'aal inuu yahay aabihii dhalay mataanaha. Waxaad ila soo gaartay dhammaadkii. Fadlan subscribe kanaalka si aad u hesho muuqaalo xiiso leh. Fadlan like iyo share muuqaalkan. Waa ku mahadsantahay daawashadaada.